qofkii samra oo gaftii laga galayna cafiya waxyaabaha waaweyn ee dadka muslimiinta laga raba ayuu qofkaasi wax kamida fuliyay fa'fu wasfahu iscafiya oo si wanaagsan u dhaqma cafisku faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah nabiga sallallahu alayhi wasallam u'fu amman zalamak qofkii ku dhulmiya iska cafi idfa' billati hiya ahsan فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم قفكي كذلمي وناغ سمي maxaa dhacay kii dhibaatada ku geystay marka aad wanaag u samayso oo aad wanaag u samayso wuxuu noqonayaa walaalkaaga ku dhow buu noqonayaa kaanahu waliyun xamiim qof qaraabo ku dhow buu noqonayaa walaashayda shariifa maxamed mayow hooyo macaalay adduunyadan waa laga tagaa haddii laga tago naxiis male waxaan adduunku ku samaysana adduunyada naga horayso saahey wixii ka dambeeyo ani waxna kuuma qabo horin waxna kuuma qabayn haddana waxna kuuma qabo iyo wixii kale iyo ehelka iyo odayaasha iyo gabdhaha yaryarba kulligood waxaan wadaa nabad oo cafis ah meeshaan waxaan dhago codsanaa inaa ii imaado shariifa maxamed mayow inaan ii soo qabsado oo agtayda ii imaado oo isgarab istaagno oo adduun weynaha lagu arko haddaan ahay ruqya maxamed axmed waxaan wadaa nabad haddaan garashadaydii cabirayoon cajaladay codkaygana ku soo faafiyo oon caynka marasi bulshadeenna caatantee lagu ciyaarayo innagoon ciga iyo faarax iyo sugin cukaasoola inaan tale cudoongaadno oon cayni qabatayn waajib culus dulkeennay ku tahay oon cafi lahayn soomaaliyay caqligu waa xibme curi natiijooyin oo midaan dib ugu caymaniyo caadilnimadooda caloosha fura cafi iyo masaamax عفية مسامح ما شاء الله ضياصك يا مدير كل سعودي وياي قدومي شرفت له سوى ناكسن بوعفي او نيد فرن markii hore ma aan cafin halkaas taagnaa laakiin hadda markuu xabadkii galay cafis iyo masamax waa gudoomiyaha dhalinyarada ee Jubbaland qaasatan Jubbada hoose cafis iyo masamax su'aashi qiyaamiyo saadkeyga ya abo ilaysa samaxa lahu samata baxaya maanta waa maalin weyn waa maalin diiniyan ah la yiri maanta waxa weeye ummadda Soomaaliyeed ee 30 sano in ka badan xalaad iyo xumaan iyo dhibaato ku soo jirtay inay maanta iscafiyaan ayaa barnaamijkan loo sameeyay waxaanu leenahay cafiska waa waxa ugu fiican ee qofka islaamka ah ee uu ku gali karo jannada wadaala isgaleno carad hadabla iskoseen nin walba waxuu geestay baa looga doonayaa ummada Soomaaliyeed waa la iscafeeyo maasha Allah waxaan ku faraxsanahay sida wanaagsan ee aynu u fulinayno amar Allah ina faray taasi oo ah inaynu iscafino oo meelo badan quraanka Ilaahay ay kaga xusan tahay in la iscafiyo isla markaana la tilmaamay in dadka ahlu jannaha ah ay ka mid yihiin dadka iscafiya wal caafina can الناس ayaa ka mid ah dadka ahlu jannaha sidaas darteed waxaynu maanta u taaganahay oo halkan aynu isugu nimid waa amar Ilaahay ina faray ma aha amar dawlo iyo amar dad kale toona la yimaadeen waa amar Ilaahay ee aan adoomada u ahayn oo ina faray walaalayaal waxaan rabaa inaan idin sheego barnaamijkan waa uu soconayaa hadduu Alla idmo rajadiisa ugu weyn ee laga leeyahay barnaamijkan waa inuu saldhig u noqdo midnimo iyo wadajir iyo wada noolaansho iyo cuqdada oo meel la iska dhigo qabyaalada oo la xooro iyo dhammaan
aragtiyaha khaldan ama aragtiyaha xun oo la xoro Inaanu kala korin